laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb caasimada maamulka Galmudug ayaa saacadii la soo dhaafay waxay hawlgalaha qorsheysan oo dhinaca amni xaqiijinta ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale degmooyinka Xaraale iyo Balanballe. Hawlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa sida loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaanada Galmudug. waxaana hawlgalkan intii ku guda jireen laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb ay ganacsatada ku amreen in ay xirtaan kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga loo yaqaano si looga hortago falalka amni darro mararka qaar dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geysan karaan deegaanadaasi. Amniga guud ee magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostaga ayaa si weyn loo adkeeyay xilli uu halkaasi ku sugan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ciidamada amniga ayaa sidaan oo kale waxay hawlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen magaalada Dhuusamareeb ay ku soo qabqabteen dad ay ku tuhunsan yihiin in falal amni darro ay ka geysteen gudaha magaalada Dhuusamareeb. Saraakiisha hogaaminaysa laamaha amniga ayaa waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan hawlgalkan lagu xaqiijinayo amniga magaalada iyo sidoo kale deegaanada u dhow booliska ayaana sidoo kale waxay madcaliyeen ganacsatadii u hogaansatay amarka ka soo baxay laamaha amniga taasoo ganacsatada lagu amriyay xirashada kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga iyagoona ku amray ganacsatada kale aan wali aan qaadan amarkaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay goobahooda ganacsiga ugu xiraan kaamirooyinka qarsoon. xirashada kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga ayaana la aaminsan yahay inay wax weyn ka tari karto sugidda amniga iyo sidoo kale in si fudud loo ogaado qolyaha ku lug leh falalka amni darro.